Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa waxa uu sabab la yaab leh uga aamusan yahay ka hadlitaanka kiiska Ikraan Tahliil Faarax oo ah waxa ugu weyn ee hadda ka jira gudaha Soomaaliya. Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo sidoo kale ah mid kamid ah musharaxiinta mucaaradka ayaa ah siyaasiga kaliya ee aan ilaa hadda ka hadlin kiiska Ikraan Tahliil Faarax oo dilkeeda lagu tuhmayo hay'adda sirdoonka Soomaaliya. Meelo badan ayaa ka dhashay sababta uga aamusay Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre kiiska Ikraan Tahliil Faarax oo hadda ah waxa ugu weyn ee dhex yaala hogaamiyayaasha Soomaalida sidoo kalena ah warka ugu weyn ee maalmaha ka jira Soomaaliya. dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda ayaa qaba in sababta uu Khayre uga aamusay kiiska Ikraan ay tahay hal qodob oo ah qaladaadka kiiskan la mid ah oo ka dhacay xukuumaddiisii inta uu xafiiska joogay. Khayre intii uu joogay xafiiska waxaa la dhiibay qalbi dhagax waxaana la weeraray dad shacab oo ku sugnaa magaalada Baydhabo kadibna la xasuuqay. waxaa sidoo kale jira weerarkii culimada Ahlus Sunna wal Jamaaca, weerarkii Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, weerarkii Cabdi Qaybdiid iyo kuwa kale oo ka dhanaa shacab iyo siyaasiyiin. waxyaabaha sidoo kale dalka ka dhacay oo Khayre markaasi ku qasbay inuu ka aamuso waxaa kamid ah caruurtii Soomaaliyeed ee loo qaaday dalka Eritrea oo ilaa iyo hadda uusan ka hadlin maadaama isaga oo xukunka haya la qaaday. Khayre ayaa waxaa haysta laba daran mid dooro haddii uu kiiskan soo hadal qaado waxaa durba ka hor imaanaysa su'aala ka waran xadgudubyadii aad adigu geysatay. marka haddii uu ka hadlo wuu ceeboobaya, haddana haddii uu ka aamuso wuu ceebaysan yahay. marka meel u roon ma jirto. Xasan Cali Khayre oo ah musharax madaxweyne ayaa xukuumaddii uu hogaaminayay waxay dhex dabaalanaysaa eedeymo iyo fadeexado la xiriira dambiyo waaweyn oo isugu jira dil, afduub iyo weeraro uu dhiig ku daatay. sidaas oo ay tahay waxaa damac uga jira inuu Soomaaliya ka noqdo madaxweynaha bedelaya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. dhinaca kale yaa lagu tuhmayaa afduubka Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad. muddo ku dhow toddobaad ayaa waxaa warkiisa la la'yahay Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo ah aqoon-yahan iyo falanqeeyo ka faallooda siyaasadda Geeska Afrika. waxaa la sheegay in laga afduubtay bartamaha caasimadda Nairobi ee Kenya. welina ma cadda cidda afduubatay, laakiin waxaa la tuhmayaa in laamaha ammaanka ee dowladda Kenya uu gacanta ugu jiro sida uu markaasi idaacadda VOA da laanteeda afka Soomaaliga u sheegay Axmed Qaloosh Maxamed oo ah xildhibaan laga soo doortay galbeedka Wajeer ee dalka Kenya. xildhibaan Axmed ayaa sheegay in meesha laga afduubtay Professor Cabdiwahaab ay tahay meel ammaankeedu uu aad u adag yahay isla markaasna ay kaliya arrintan camal ka sameyn karaan ciidamada dowladda Kenya. marka fiiriso meesha laga afduubay, saacadda la afduubay, uma malaynayo nin aysan dowladda ogeyn in uu soo wadan karo. xataa haddii dowladda aysan ku lug lahayn waajib ayaa ka saaran ninkii Cabdiwahaab afduubay inay keenaan, maxaa yeelay meesha laga afduubay waxaa ku xiran kaamirooyinka qarsan ee CCTV ayuu xildhibaanku yiri. xildhibaanka ayaa sheegay in ay la xiriireen laamaha amniga isla markaana ay rumaysan yihiin in Professor Cabdiwahaab uu nool yahay oo aysan dowladda Kenya ku dhiiran karin in ay disho maadaama uu sheegay in ay dowladdu aragtay sida ay dadku uga falceliyeen. waxaan la xiriirnay madaxweynaha Kenya waxaana uu sheegay inaan annaga rumaysanahay in Cabdiwahaab uu dowladda u xiran yahay. haddii Cabdiwahaab dambi lagu hayo maxkamadda la soo taago, haddii kale waa inuu helo xorriyadiisa ayuu yiri xildhibaan Axmed. waxa uu sheegay in arrintan dhowaan la horgeyn doono aqalka sare ee dalka Kenya isagoo xusay in aqalka hoose oo uu isagu ka mid yahay uu hadda ku jiro fasax ilaa laga gaaro 22 bishan aynu ku guda jirno ee September.